السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفر كان دير وان كسب بلاوي بلان هذا عن مقالة قال كعيه كجوجو وعن ربعين هذا اللي وداقو سفر كان مقعي سووه يهي وعن هو مقعدري سفر كان إنه نقضه وسفر كتبوا هشيسين الصوماليات وسفر كتبوا هشيسين الصوماليات وعن ربع هالكن magaaladan gaalkacyo aan doonayaa inay noqoto hoygii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed waa magaalo taariikhi ah oo ka yimaadeen halgamayaashii dad ka mid ah ee ka yimaadeen madaxdii qaranka soo maray intoodii badnayd waa magaalo taariikhi ah markaasi waxay ahayd hal magaalo ahayd oo dadkeedu ay walaalo yihiin وانا كسو علينا ان شاء الله مقالدان الى نقطة ماشي دبشين صوماليا كبلا والله هدو الهي يراهدو واما سنتين سنة شرفت له او وانا اكسنو والتني ماذا له او كالقعلتوية له او صومالي ماذا له او مدي ماذا له هدو نوكسو دويسين ان شاء الله وحنون مدينة سحق وريسانو او ان وحا الله وحي ان سوى دارسان كارنو تلوينه ان سوى دارسانو او ان كاشقين مقالدان الى نقطة مقالدي كبلا بطنمات الصوماليات ay ka bilaabatay magaaladii dibashiin Soomaaliyeed inaan dib ugu celino sida meeshan ku taala inaan magaaladan qaybsanaan mideeno muhiimadeena koowaad muhiimadda dawladda Soomaaliyeed muhiimadda qof walba mas'uul ah uu leedahay way magaaladan inaan nabadeeno magaaladan inay noqoto magaalo hala dadka waalaha magaaladan gaalkacyo inay noqdaan sida ay ahaan jireen oo aan ognahay inay tahay magaalada ugu weyn gobolada dhexe iyadoo qaybsan ya magaalada ugu weyn tahay magaalada ee gobolada dhexe bal ka warrama iyadoo midaysan waxay noqon kartaa iyadoo nabada waxay noqon kartaa magaalada rugta ganacsiga ee Soomaaliyeed ay noqon kartaa iyo gobolka Hoydil walaalayaal waa mahadsantihiin insha Allah ana waa kala warqadanayna laba maalmood soo socotaan joogna magaalada
waxaan uga tagaynaa magaaladan iyadoo midaysan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفر كان دير وان كسب بلاوي بلدان هذا عن مقالة قال كعيه كجوجو وعن رباعين هذا اللي وداقو سفر كان مقعي سووه يهي وعن أقوم مقعدري سفر كان إنه نقضه وسفر كتبوا هشيسين الصوماليات وسفر كتبوا هشيسين الصوماليات وعن رباع كان magaaladan gaalkacyo aan doonayaa inay noqoto hoygii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed waa magaalo taariikhi ah oo ka yimaadeen halgamayaashii dad ka mid ah ee ka yimaadeen madaxdii qaranka soo maray intoodii badnayd waa magaalo taariikhi ah markaasi waxay ahayd hal magaalo ahayd oo dadkeedu ay walaalo yihiin وأنا كسو علنا إن شاء الله مقالدان إلى نقطة ماشي دبشين صوماليا كبل على الله هدو إلهي يرادو وأما سنتين سنة شرفت له أو أنا أكسر والتني ماذا له أو كالقعد طويلة له أو صومالي ماذا له أو من ماذا له نوقو صدو ويسين إن شاء الله وحنون مدينة سحق ورسنه وأن وحالله وحي أن سوى دارسن كرنو طلوينه أن سوى دارسنه وأن كشقين مقالدان إلى نقطة مقالد دي كبل على النمط الصوماليات ay ka bilaabatay magaaladii dibashin Soomaaliyeed inaan dib ugu celino sida meeshan ku taala inaan magaalada qaybsanaan mideeno muhiimadeena koowaad muhiimadda dawladda Soomaaliyeed muhiimadda qof walba mas'uul ah oo u leedahay way magaalada inaan nabadeeno magaaladan inay noqoto magaalo hala dadka waalaha magaaladan gaalkacyo inay noqdaan sidii ay ahaan jireen oo aan ognahay inay tahay magaalada ugu weyn gobolada dhexe iyadoo qaybsan ya magaalada ugu weyn tahay magaalada ee gobolada dhexe bal ka warrama
iyadoo midaysan waxay noqon kartaa iyadoo nabada waxay noqon kartaa magaalada rugta ganacsiga ee Soomaaliyeed ay noqon kartaa iyo gobolka Hoydil walaalayaal waa mahadsantihiin insha Allahna waa kala warqadanayna laba maalmood soo socotaan joogna magaalada waxaan uga tagaynaa magaaladan iyadoo midaysan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo wafdiga madaxweynaha dowladda federaalka ayaa garoonka diyaaradaha Gaalkacyo waxaa ku soo dhaweeyay madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug qaybaha bulshada iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo Gaalkacyo ku sii sugnaa inkastoo muddo dheer la sugayay wafdiga madaxweynaha haddana dadka Gaalkacyo oo aan kala qaybsanan ayaa si weyn uga qayb qaatay soo dhaweynta madaxweynaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo fagaaro kula hadlay boqolaal dadweyne ah ayaa sheegay in safarkiisa uu ugu magac daray safarka nabadda isla markaana inta Gaalkacyo uu ku sugan yahay uu ka qayb qaadan doono nabadda gobolka Mudug magaaladan Gaalkacyo aan doonayaa inay noqoto hoygii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed waa magaalo taariikhi ah oo ka yimaadeen halgamayaashii dad ka mid ah ee ka yimaadeen madaxdii qaranka soo maray intoodii badnayd waa magaalo taariikhi ah markaasi waxay ahayd hal magaalo ahayd oo dadkeedu ay walaalo yihiin waana ku soo celinayna insha Allah magaaladan inay noqoto meeshii dib u heshiisiinta Soomaaliya ka bilaaban lahayd hadduu Ilaahay yiraahdo waa mahadsantihiin sida sharafta leh oo wanaagsan oo waaltinimada leh oo kalgacaltooyada leh oo Soomaalinimada leh oo midnimada leh aad noogu soo dhaweyseen insha Allah waxaan u nimid inaan xog wareysanno oo aan wax alla wixii aan isweydaarsan karno talooyina aan isku weydaarsanno oo aan ka shaqeyno magaalada inay noqoto magaaladii ka bilaabatay nabadda Soomaaliyeed ay ka bilaabatay magaaladii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed inaan dib ugu celinno sida meeshan ku taalla inaan magaaladan qaybsan aan mideenno muhiimadda koowaad muhiimadda dawladda Soomaaliyeed muhiimadda qof walba mas'uul ah uu u leedahay way magaaladan inaan nabadeenno magaaladan inay noqoto magaalo hala dadka waalaha magaaladan Gaalkacyo inay noqdaan siday ahaan jireen oo aan ognahay inay tahay magaalada ugu weyn gobolada dhexe iyadoo qaybsan ya magaalada ugu weyn tahay magaalada ee gobolada dhexe bal ka warrama iyadoo midaysan waxay noqon karto Abdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo